kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu aqoonsaday 15 bisha Abriil in ay tahay maalinta dhirbeerista jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta lagu xusay magaalooyinka kala duwan ee Somaliland. xuska maalintaasi uu aastay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu xusay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu qabtay xuska maalinta dhirbeerista iyo dhowrida deegaanka. barsaabka gobolka Awdal iyo maayirka magaalada Boorame ayaa ka qayb qaatay xuskaasi, waxaana dhirbeerista maanta laga bilaabay seeraha magaalada Boorame iyo sidoo kale dugsiyada waxbarashada ee magaaladani Boorame. barsaabka gobolka Awdal iyo maayirka degmada Boorame iyo sidoo wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal oo ka qayb qaadanay xuskaasi ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay ka qayb qaataan dayactirka dhirbeerista gobolka Awdal. mas'uuliyiintan oo xuskaasi ka hadlayna waxay sheegeen sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uga aastay 15 Abriil inay noqoto maalintii dhiraynta qaranka jamhuuriyadda Somaliland. anagoo ka duulayna ayaan garowsanay inay maanta tahay maalin nololeed. waxaan markaa dadweynaha ku nool degmada Boorame guri kasta aan faraynaa oo ku waajibinaynaa waliba inuu beero hortiisa hal geed. geedihiina waa loo hayaa. noolaha kale oo dhan waxa dhawa consumers waa qoot, laakiin dhirtu waxa weeyaan waa producers, waa wax soo saar. waxaanay noogu filan tahay nolosha dhan. waxaynu u baahannahay wax la yiraahdo oxygen. shayga kaliya laga helo ayaa cuntadeena iyo oxygen-tan qaadanaaba waa dhirta. marka waxaan ku oran lahaa bulshada reer Awdal ardayda inaynu ilaashanayno arday walba gurigooga iyo dugsigiisaba uu dhirtaasi ku beero una ilaaliyo. intaasaan markaa ku dardaari lahaa maalinta dhirta una aastay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi. sidaa daraadeed waxaan maanta dul taaganahay dhirtii oo nin waliba geedkiisii uu beeray iyo laba intuu ka gaarsiinayay. waxaan ku beeray oo taaganahay seerihii degmada Boorame. waxaan maawiir ku bixinay in degmooyinka oo dhan laga sameeyo dhirbeerista. waskariya Cabdisheekh Faarax Sakari Saxane, telefishinka caalamiga ee GTN TV magaalada Boorame.